عليكم ورحمة الله وبركاته والله دمان meel kastoo joogtaanba waxaan rabaa inaan la wadaago wadanka Pakistan maxaa ka jira waxaa halkan lagu soo qoray protesters are turning on Pakistan military after Imran Khan is arrested waxaa kaloo lagu qoray hadda here what do you need to know maxaad doonaysaa inaad ka ogaato haddaan si kooban idinkugu dulmaro wadanka Pakistan wuxuu ka mid yahay wadamada caalam islaami ugu awood badan military laakiin mushkilad haysato 1947 ilaa hadda mushkilad haysato awoodda reer galbeed waxay gacanta u geliyeen military Pakistan Egypt Tunisia hadda socota Sudan dhammaan waxaas gacanta waxa loo geliyay military ujeedada ka dambeysa waxa waaye danaha ay militariga ka leeyihiin inay ku fushadaan wiilkan dhalinyarada marka dabcan nin dhalinyaro daawaay laakiin waxaan ka wadaa maskaxda soo curiyay waxa lagu haystaa oo ninkan xilkiiba looga tuuray ra'iisul wasaarnimada oo kambeyn loo keenay oo baarlamaanka loo dhaxgalay waxa wax badan ka simanaa arrimaha Soomaaliya reer galbeedka fargelin badan bay ku hayeen nimanka xalana fadhiya dawladeena dhexe la joojiyaa banaan la jiifiyaa banaan ka dhiga iyagana sidaas oo kale militariga loo soo maraa marka militariga lagula daneystaa waxa ka dhaca halkaas marka ra'iisul wasaaraha xilka laga tuuray laba ujeedaan ugu weyn koow Moscow tagay markii Ruushka ku duulay wuxuu yiri reer galbeed uu ka dhaga fureystay waxa iga jira malahan hana tagina loo yiri waa loo digay wuu tagay markuu ka soo laabtanay baarlamaanka lala hadlay kambeena laga keenay qaalaha u badan militariga Mareykanka ku bixiyay waxa loo naas nuujiyay waxa waaye danahooda gaarka inay ka fushadaan ninkan dhalinyarada marka wuxuu rabay oo maskaxda dhalinyarada wata militariga in xilka laga wareejiyo laga dhigo dawlad shacab awoodda militariga la yeerayo marka ninka meeshu ku socda la arkay waxa la yiri khatar buu nagu yahay hala dhaafi meesha markii xilka laga tuuray saas loogama harine dhowr maxkamadood laga wacay hadda waxa ugu dambeeyay lagu soo eeday waxa way corruption marka Nawaz Sharif ma corruption Nawaz Sharif is corruption kama asaa mise Imran Khan is corrupted statement is clear way caddahay qofka corruption ka Nawaz Sharif iyo kooxda la shaqeysa iyaga waxay yihiin kuwa failure-ka ee western-ka u shaqeeya waya warka haddaan sii raacno waxay ku leeyihiin inta maadaama waa la xiray laakiin wuxuu leeyahay ninkan media aad ka hadlaa waa nin halku dhig aad baa loo sameeyay laga soo bilaabo waxa lagu leeyahay 1947 Pakistan waxa waaye political stability-geedii waxa waa regime change sameeyay markasna awoodda ruleska waxa iska leh powerka militariga meeshaas ku caddahay marka dadka maxay sameynayaan saboortiyaashiisa banaan bax way taageersan yihiin banaan baxay sameeyeen haddii marka qof ka mid qof si gardaro loo xiro oo shacabka banaan baxa Trump kooxdiisu banaan bixisay maxaa United States statement ugu soo saari waayeen Britain maxay statement ugu soo saari waayeen selfish macnaha waxay ku yihiin wax kale ma ahin la joojiyaa banaan waa la jiifiyaa banaan marka waxay yiraahdeen statement ka soo saarnay waa tusi doona statement UK and join statement-gooda wada arkayna maxaa loo xiray waxaa lagu eedeynayaa ninka la leeyahay wuxuu sameeyay wax la dhahayo multiple corruption charge waa wax iska fake waa ma fahanti waa sheeko waxa waaye once upon time history waa macnaha maxay janju sameynaysaa iyo China ku xirtay labadaas Russia iyo China ku xirtay ninka cilada ugu weyn saas oo wadankan wax ka bedelo rabo dhaqaalihiisna wax badan u qabtay intuu joogo in lagu amaano mudan yahay maxaa dhacay Pakistan marka Pakistan waxa waaye militariga iyo shacabka ayaa qoorta iskugu jira sida marka ninkan shacbiyo haysta militariga awooday ku maqooninaay dadka
marka booliiska waxay sheegeen in 1,000 qof oo supporterska ah la xiray magaalada punjab ma fahante marka dadka saas ku joojin maayaan ilaa lasoo daayo qof waxa la arki jiray maxkamad loo yeera maxkamadii waxa soo cadeyn la yiraa rafcaan qaata ma jiro maxkamadda sare oo nin iyaga wata booliiska wataana la yiri ha soo xiro marka bakistan prime ministerkeeda shahbaz sharif wuxuu ku tilmaamay ka warqaan supporters inay yihiin terrorist waa erey aada u qaldan waa inaad shacabkaada tiraahdo waa terrorist adoo prime minister ah oo dadka ay si dimuqraadiya ku banaan baxaan oo xornimadooda ku banaan baxaan waxay tilmaamaysaa runtii meesha kala tegaysa waa inay u badan tahay arrinta haddii socoto dagaal sokeeya sida suudaan inuu ka qarxayo dadka reer bakistan waa dad shacbiyad adag reer galbeedna way kasoo daaleen marka waa markii karkaarka weydaaranayo u eg tahay ilaahay laakiin kama dhigo inuu shacabkaas muslimka oo dagaal sokeeya geli imraan khan yuu yahay waa ninkan marka laga soo sheekeynaya wuxuu ku dhashay magaalada lahoor ee caanka ah waxbuu kusoo bartay wuxuu soo qaatay philosophy political economy Oxford University reer galbeed wax ka soo bartay midaasna iga ogaada ninka reer galbeed ku dhex jiro wax ka soo bartay siyaasadooda ogyahay hadda mathalan laba tusaale aan siin xasan sheekh maxamuud inta badan waa nin waddanka joogay farmaajona waa nin reer galbeed la soo ceyshay yaa aada u fahansanay reer galbeedka farmaajo aada u fahansanay waa tan uu isku dayay inuu reer galbeed xalanaysa soo dhaafin marka farqiga u dhexeeya waxaa qofka la noolaaday reer galbeedka noloshooda iyo qofka waddankiisa iska joogo waxaasi ku kala duwan yihin dowladda nawaas joogo shahbaz sharif uu joogo waa dowlad iska corruption ah oo reer galbeedka ay fangarayaan wax doono sameeya indhaha laga qabsado marka waa iska taqaanaa walaalkiisana lagala wareega xilkii waad ogtiin markan yaan kusii dheeraanin marka waxaan rabaa inaan usii gudbo why have protested target military sababtay u target garaynaya maxay yihiin waa dad iska shacab u banaan baxayo oo ninkan gardarada lagu xiraa lasoo daayin leh intaas way ya waayahay marka waxaa ah cajiib ah waxaa surprise ah ya surprise waxaa ah in united kingdom iyo united states ay kasoo saaraan joint statement waxaan ku tilmaami karaa warqadii yiraahday maxkamadii raashinka madaxweynahoodu yiri warqadii qashinka lagu riday mudantay la mid tahay tan nationka imraan khan sidii reacti uga sameeyeen ayaa looga hadlaya halkan meesha ay statementii kusoo saaray iyo qolada soo saartay waxyaalahay ku hadleenaan waxyar dul istaagi waa kana united kingdom labadaba waxay conser gareeyeen in maaragtay xiritaankii meesha uu kaga hadlaya halkan okay waxay ka dhaheen united states u k eu joint statementigay soo saareen maxawa waxay ku leeyihiin call it respected democrat what's democrat military haysta there is no democracy ma jiro meesha and the rule is low Pakistan haddii la xiray waa inay dadka sharciga ilaaliyaan weligaa ma maqasha reer galbeed shacab banaan baxaaya oo dowlad ku banaan baxaaya hadday noqotaba ha noqotay tii u dambeysay suudaan shacabka markay banaan baxaya maxay dhihi jiray shacabkaa la tixgeliyo yaan la caburin soo ma dhihi jirin hadda waxay leeyihiin dowladda shacbow dowladda dhegeysta warkeeda shacbow dowladda dhegeysta markii trump koox uu soo saaraya ay magaalada new york ku banaan baxayeen maxaa loo dhihi waa statementigaas marka waa statementi aan u arko waxa waa la jiifiyaa banaan la joojiyaa banaan ma fahamte inay soo saaraan waxaa iska ficneed keep silent america inay iska aamusaan that's why reason america the interested waxay ugu yihiin inay faragelin ku sameeyaan oo militarigooda ay gacanta ugu haayaan oo iyaga maadaama ay ku qarash garayaan dadka soo saaray yay yihiin britishka waa ujeeda james clear iyo waxa soo saaray statement anthony blinken
ruleska waa ina wuxuu ku leeyahay wanting the rules of the law to be follow wadamadaas in la yeelo. marka waxaan leeyahay ilahay waxaan ka rajeyn bakistan inuu nabad istiqraar siiyo, laakiin nimanka haysta ee la keensaday oo macaamiisha ah waa kuwa mar walba ay ku shaqaystaan oo danahooda gaar ay ka fushadaan reer galbeed. shacabka soomaaliyeedna inay fahmaan laqad kaana fii qasasihim, wax walba ka dhacaya wadamada muslimiinta anaga waxa suudaan ka dhacaya waa inaynu indhaha ku hayno imaaraad iyo arrintiisa, sababtoo ciidamada imaaraad uu kasoo tababaray uganda laga keenay, dhaqaaluhu ku bixinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ammaanayo, soomaaliya xal uma keenayaan. ilaahay xaggiisa waa gooni, laakiin imaaraad oo kheer suubiyo lama sheegin nolosha. daraasaadka akhriya libiya maxay ka suubiyeen imaaraad, tunis maxay ka suubiyeen, suudaan hadda dagaalamaysa maxay ka sameeyeen, haddana maxay ka sameeyeen. waa isku wado isku jihoon bay qaadeen. walaalaha waxaa leeyahay meel kastoo joogtaanba waxaa idinkaga tega amaana allah.